wasiirada cadaaladda dalalka islaamka oo kulan ku yeeshay magaalada Jeddah ee dalka Saudi Arabia ayaa waxa ay ku baaqeen in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya laga taageero dhismaha hay'adaha garsoorka. wariyaha warbaahinta qaranka uga soo warrama magaalada Jeddah Axmed Carab ayaa warbixinta warkan inoo soo diray. sanadeedkii wasiirada cadaaladda ee wadamada Carabta ee laba maalmood uga socday magaalada Jeddah ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo go'aanadii ay ka soo baxeen ay ugu horeeyeen sidii Soomaaliya loogu horumarin lahaa dhismaha hay'adaha garsoorka iyo cadaaladda. shirkaasi oo ahaa kii soddonaad ee wadamada Carabta ayaa si weyn ay u muujiyeen baahida loo qabo garsoorayaasha Soomaaliya sidii loogu tababari lahaa dalka dibadiisa isla markaana loogu hirgelin lahaa kulliyadda dhinaca garsoorka kor loogu qaadi lahaa aqoontooda iyo khibradaha garsoorka Soomaaliyeed. shirkaasi ayaa ahaa mid si habsami leh u soo gabagaboobay una dhacay jawi aad u wanaagsan. waxaa dhinaca Soomaaliya u matalayay wakiilka Soomaaliya u fadhiya xarunta ururka Islaamka mudane Cabdirasaaq Siyaad Cabdi iyo xogayaha labaad ee safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay magaalada Riyaad mudane Cali Nuur Macalin iyo mudane Tawaab Axmed Macalin oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha fiqiga iyo qaynuunka. Axmed Carab, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jeddah.